الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درس كان لوقم دايما وحكوسها في سيئة العفة إيوه عفض ويري أفكا عربان معنا بلارن سيدة، لكن علماء المسلمين تيسكي الصومالية دي كترجمان دور صوني هي نبي الله يوسف عليه السلام سيدو الرمز أما تصالة وقوها يا رب سبحانه وتعالى قرآن فوصوبا لك أريقا سيكوبا ندينا في عربان هانكو تلمامنو عفضو وحيدا نواء الكف عن القبيح، أما سيوحي كنت الماما الكف عما لا يحل ويجمع، ودور سوني لغا دور صدو أما لغا جوك صدو وحي فاشحن أما وحان بنانين أما وحان قروح ربضنين مركا قاركودنا النزاهة بالغت الماما. مركا الله يقول اصطلاحهان علماء المسلمين تهي وحي كشيغان لبا نوعين او قيبسنتو، midi waa maxaarimta oo laga joogsado waxa xaaraanta, midna waa ma'aasimta waxa dambiga ah oo laga joogsado. mas'aladan markay sidan u kala qaadayaan cifada waxay u qaybiyaan fi cilmihim ama mustalahaadka adeegsadaan markay isticmaalo afar qaybood bay u qaybiyaan. qaybta koowaad ee maxaarimta laba loo qaybiyaa ka joogsiga maxaarimta, qaybta labaad ee ma'aasimta iyo ka joogsigeedana laba loo qaybiyaa. qaybta koowaad oo ah ka joogsiga maxaarimta waxay ku tilmaamaan culamadu waa dhowrsoonida ama ilaalinta la ilaaliyo farjiga iyo carabka. qofka muslimkii dhowrsoonidiisa ama ilaalinta uu ilaaliyo farjigiisa oo camaa laa yaxil waxaanu bannaanayn uu ka ilaaliyo, iyo dowridda uu ilaaliyo carabkiisa oo ka ilaaliya sina waxaanu bannaanayn. qaybta ma'aafinta ay sheegayaan waxay ku tilmaamaan waa alkafu can ilmujaahara bidulm, qofkoo ka joogsada inuu dulmi la soo banbaxo oo uu dadka dulmiyo, iyo bay idhaahdeen qofka oo ka joogsada ama naftiisa ka celiya inuu khiyaano qarsado. idan afarta qaybood ay u qaybinayaan mid waa farjigoo la ilaaliyo, midna waa carabkoo la ilaaliyo, midna waa dulmiga oo lala muuqdo oo laga dheeraado, midna waa khiyaanadoo la qarsado oo qofka muslimku uu ka dheeraado. waa afar mowduuc oo ballaadhan oo islaamiya, waana afar mowduuc oo qisada nebi yuusuf afartuba ay hoos imanayaan. nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam iyo zino siduu uga dhowrsaday ilaahay qur-aanka wuu ku tilmaamay. nebi yuusuf iyo carabkiisa siduu u ilaaliyo waa lagu tilmaamay. nebi yuusuf iyo madaalimta markuu xukunka qabtay siduu uga dheeraaday waa lagu tilmaamay. nebi yuusuf iyo sida aan u khiyaamaynin ninkii uu gurigiisa joogay ee casiizu masar ahaa ama se boqorkii uu dowladda wasiirka uga ahaa, midnaba aan u khiyaamayn. qisadu way ka warramaysaa. laakiin deriska culamadiisa oo qabanqaabiya waxay ku talagaleen qeybta koowaad inuu deriskani noqdo oo ah nebiyullaahi yuusuf iyo siduu ramsigu ahaa cafiifnimada farjigiisa inuu dhowro ilaaliyey, ama ka dheeraanshiyaha zinada iyo wixii la xidhiidha qeybta ka warramaysa. cumuuman markaynu qeybtaa qaadanno waa matlab sharciya, ama waa sharcigu wuxuu basharka ka doonayo inay dhowrsoonaadaan rag iyo dumarba, oo rag iyo dumarba inay ka dhowrsoonaadaan xaaraanta rabbi xaaraantinimeeye zinada ah. waa matlab ijtimaaciya baa la yidhahdaa, bulshadu baahay u qabto weeyaan, oo inay acraadeeda ama sharaftideeda ay dhowrato. waa matlab ijtimaaciya bay yidhaahdaan, oo waa wasaaisha zinadu ay ku gudbaan diseaseska ugu badani ama xanuunada ugu badani basharku isku gaadhsiiyo,
walidalik shareecada islaamiga waxayna ugu yeedhaysaa qofka muslimka ay mas'alada jinsiga la yidhaahdo sexka lagu tilmaamo iyo qaabku u gudanayo. ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya waankixu layaama minkum wالصaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqaraa yugnihum allahu min fadli wallahu waasicun calim. rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy u guuriya kuwa saalixiinta rag iyo dumarba ee guurlaawayaasha ah, kuwa aan guursanin rag iyo dumarba u guuriya baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala. war hadday foqoro yihiin aanay waxaysanin baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala, ilaahay baa fadligiisa ka qani yeeli doona. aayadda ku xigtaa rabbi wuxuu ina farayaa markaa haddii uu qofku rag iyo dumarba awoodda guureedu waayo ama uu guursan kari waayo ama aanay weli u suurto gelin, mal camal muxuu samaynayaa? wuxuu samaynayaa inuu dhowrsado, waana mas'alada markaa mowduucu ku saabsan yahi. haddii ay u suurto geli weydo, asalku waxa weeyaan yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa falyatazawaj, hala guursadaa la yidhi. haddii guurku kuu suurtoobi waayo, mal xal? xalkaa ilaahay ka waramaya wuxuu leeya waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan, waliyastacfif طalabu lcifa, ha dhowrsoni dalbaan baa la leeyahy oo ha dhowrsadaan aladiina laa yajiduuna nikaaxan, kuwa aan guursan karayni ha dhowrsadaan baa ilaahay leeyahy xataa yugniyahum allahu min fadli, ilaa iyo alla subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo dheeraadkiisa uu ka qani yeelayo. casrigan aynu joogno oo musiiraadku badan yihiin, waxyaabaha qofka bini aadamkaa kiciya ay tiro badan yihiin, hadday dhereg tahay, hadday cunno tahay, hadday waxa qofka bini aadamkaa kiciya ay tiro badan yihiin, fadaa-iyaadku ay tiro bateen, waxaan la daawado ee tviyada ah ee mubaasharka ee wax walba soo daaya ay tiro badateen, ashabaka alcankabutiya, internetka iyo waxaan laga daawado, uu xumaaday namadka thaqaafiga ama culturali dadku siday u fakerayaan ama u dhaqmayaan, siiba dhulalka aynu degannahay, uu yaraaday waxyaabihii akhlaaqda san loo yaqaanee ku saabsanaa jinsigu, uu soo ururay miidiyaha tirada badan leh iyo qaabka waxbarasho ee dunidu ay u socoto inteeda badani ay sababeen. waxaa dadka badh moodaa inuu ya-si ku riday ama quus inaan laga dhowrsanaan karaynin, laakiin taasi waa xaqiiqa aan asal lahayn. qofka mu'minkaa korkiisa maaha inuu quusto iyo inuu isdhiibo iyo inuu yidhaahdo musaayarat alwaaqic, dee nolosha caynkana maxaa kale la sameeya. ee waxaynu u baahanay nafteen iyo dhallinyaradaba in lagu booriyo in uu qofku dhowrsanaan karo, fitnadana laga dhowrsanaan karo, siiba da-da shabaabka la yahay. in la dhowrsadaa maaha wax mucjizo ah, wax gariiba, waxaan loo taag heli karaynin ma aha. ma aha amar mustaxiil oo laleeyahy waa impossible in qofku uu dhowrsanaada ma aha, laakiin waxaynu leenahay waa matlab waaqiciya mumkina, waa shay suurtagal ah oo caqliyan suurtagal ah, waaqiciyanna dhacay, laakiin waa shay min asucuuba ay ku jirto, adayg baa ku jira. laakiin nafta bini aadamkii waxay u baahan tahay falaqtaxama alcaqaba baa ilaahay inaad caqabaadka ka tallaabsato si aad janno u hesho. aayaadkan marka aan dul maro waktiga oo kooban daraaddeed, saddex shay bay caddaynayaan. yuusuf iyo wadcigu ku sugnaa, gabadha iyo xaaladeeda, darfiga iyo siduu muhaya u ahaa. haddaan yuusuf tilmaamno, nebi yuusuf waa ninna hunguri dumar ma daayo, waa ninna hunguri dumar ma daayo. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay fitno kaga dhib badan rag maan arag dumar, yacni fitno ka weyn oo ragga ka dhibta maan arag. idan ilaahay baa ku abuuray subxaana wa tacaala, waxyaabaha lagu itixaamay buu ka mid tahay, waxyaabaha nolosha qiimaha u yeelana waa ka mid.
kow waa marka labaad yuusuf waa shaab waa dhalinyaro hadduu oday ahaan lahaa waxaa la odhan lahaa waa nin waktigiisii soo qaatay oo hunguri haweenaan oo aada agtiisa ugu buurayn laakiin nebi yuusuf waa nin dhalinyaro ah oo cunfuwaani shabaabihii ku jira dhalinyaronimadiisa xooggeedu meeshuu ugu horeysay ee bilowgaa ku jira waa mar saddexaad yuusuf waa aczab waa doob oo xaas xalaala ma leh hadduu reer yeelan lahaa oo gabadh kale hunguraysa waxaa la odhan lahaa waa nin kifaaya haysta wuxuu ku warwareegu haystaa markaa waa dhaafi karaa gabadh kale yuusuf reerna ma leh waa mar afraad ee yuusuf waa gariib qofku meesha uu degan yahay ee lagu garanayo ceebta wuu ka xishooda laakiin ninka dhalinyaradii tuulo yaroo gaala deganto aan cidiba garanay hadduu iska tago hadduu suuqa iska galgalo dee cidina ma oga rabbunbaa og subxaana wa tacaala saa daraaddeed qofku dhul aan laga garanayn markuu yimaado cawaamishii xishoodka ku adkeynaysay wuu ka durkay yuusuf dhul aan dalkiisii ahayn buu joogaa masar baa laga soo qaatay waa yacni falastiin meelahaasaa laga soo qaatay masar meelahan baa la keenay dhulkiisii iyo dadkiisii maaha tolkii meesha ma degana cidi garan mayso waa gariib gariibkana waxaa u fudud in xumaha sameeyo yuusuf mar shanaad waa mamluuk qofka xorta ahi nawcun maa dignity iyo sharaf gaar oo ilaashada iyo status uu mujtamaca ku leeyahy baa jira laakiin qof la adoonsanayo oo cubuudiya ku jiro mamluuki isaguna dee ceebtuma qabato aada qof u ceeboobaya ma aha kullu haada waxa ay tilmaamayaan yuusuf inuu ku jiro darfi ay fududahay inuu zinaysan karo marka nolosha bini aadamkii caadigaa lagu qiimeeyo dhanka kale marka laga eego haweeneyda u yeedhay ma aha haweeney magaalada iska joogto oo caadiya ee waa imra-atun daata mansabin wa jamaal bay idhaahdaa waa gabadh marka hore status leh waa boqortooyadii meesha waa marka labaad waa gabadh bay idhahdeen qurux badan bay sheegaan culamaai tafsiir inkastoo aayadda qur-aan aanay ka muuqanin laakiin waxay ka daliishadaan wadciga nin dhaqaalo leh oo boqora oo wadan dhan haysta inaan gabadh falxuna guursanaynin de ila dankao dhan buu boqorba u yahay inuu ka dhex dooranayo markaa wadciga caadiga la yaqaana bay leeyihin waa gabadh qurux badan daatu mansab oo jamaal weeyaan waa mar saddexaad bay idhaahdeen ee ninku markuu isagu hunguridoonka yahay waxaa maskaxdiisa in badan ku jirta gabadhu may ku diidi may ku aqbali may ku radin may ku caayi may ku ceebayn maxay samayn ma garanaysid wax ka soo bixi doona halkan iyada hiya alatii raawadatu iyadaaba hunguri doona isagaa yuusuf la dalbaya oo la raadcaynaya idan haddii ay iyadu dalbanayso oo ilaahay subxaana wa tacaala waraawadatu ku tilmaamay maaha mar iyo laba waxa la dalbayo muraawada baa lagu tilmaamay waa doonitaan istaba socda oo intay doontay oo u yeedhatay weliba ku celcelisay doonis qura maaha qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa haweenkii kale markay dacaayadeen waxay dhahay wa qaala nisbatu fi lmadinati imra'atu lcaziizi turaawidu fataha maxay sheegeen turaawidu fataha can nafsi qad shagafahaa xubbaa bay dhahay kalgacayl baa qalbiga degay shikaafulqalbiga waxay dhahay waa xuubka qalbiga yacni kaanamaa jacaylku xuubka qalbiga uu dilaaciyey waa gabadh jecel gabadha raadcaynaysa waa mar kale ee hadalka iyadaa bilowday doonis qura ma aho bilishaaraat ah waxaa laga yaabaa gabadhu intay ku ag marmarto isjabiso inuu qofku ishaaraadkeeda wax ka fahmo laakiin marka kan maaha waa kalaam sariixa hayta laka bay leedahay albaabada intay u xidhatay ayay leedahay hayta lak soo dhawow kaalay baa la leeyahy idan kalaam sariixa oo la fahmi karay ku hadlaysaa waa mar shanaad ama lixaade alxawaajis nafsiya marka waa burbureen gabadh isqurxisay oo gurigeedii joogta oo albaabada xidhatay oo u yeedhaysa ayi xaajis nafsiya u ninkan is idhaahdo armay waxaan uga jeedaa waxaa laga yaabaa
mamluuk gabadhu iska kaalayon hadday tidhaahdo inuu sidhaa talo miyay ku imtixaamaysaa mise way ku eegaysaa habay ku xidhaa markaad xaggeeda u dhaqaaqdo. laakiin afcaashani waxay tilmaamaysaa xawaajista nafsiga o dhami inay jabtay. mar hadday albaabka xidhatay oo caynkan samaysay oo waxaan oo dhan samaysay waxay tilmaamaysaa xaajis nafsigiiba inaanu jirin. waa mar lixaad ama toddobaade waxaan odhan karnaa gabadha tani gurigeedii bay weliba joogtaa. suuqa waxaa laga yaabaa armaa cidinku aragta ama aada ceebowda ama meel aad la tagtaba gabadha aad garan weydaa. halka kan waa beytuha allatii huwa fii beytiha. waa mar toddobaad ama sideedaade waxaa jirta weliba waa madaxdiisii saaxibu sulta, isna waa addoon iyana iyadaa xukunta oo hadduu diido dee waa ciqaabba ka ratibi karta ama mashkilo kale ka ratibi karaa. idan sultad bay ku haysataa, way ka xoog badan tahay. waa mar kale qur-aanku wuxuu tilmaamayaa xataa yuusuf markuu is adkeeyey inay ku dayday xoogga. yuusuf markii intaasoo dhan la yidhi xoog baa lagu dayo dabeetana wuu cararay. wastabaqa albaaba baa ilahay yidhi, albaabkaaba loo baratabay oo albaabku uga dheereeyey. taa macnaheedu waxa weeyaan xataa inay force garayso, inay rayd garayso isaga ayay tijaabinaysay. iyadaaba doonaysa inay kufsato, isna waa ordaya. waxaa intaas sii dheer haddana ficlo mar dhacaysa maahe waa guriguu degan yahay. maalin walba la iska soo horbaxayo la wada joogo waa meeshuu deganaa. oo qofka maalin un intaa kulantaan waxaan kuu dhaca haddaad iskaga tagto waxaa laga yaabaa ina kala libidhaan. laakiin tani waa gurigu deganaa ee waa baryaba la iska soo horkacayay. yacni mushkiladda wuxuu la kulmayaa si yowmiya weeyaan. waa mushkiladaan ka dhammaanaynin oo maalin walba la kulmaya. waa mar kale waa caazima. go-aanku gabadhan waa ka dhab oo dumarkii dacaayadeeyey waa tii intay usoo bandhigtay tidhi soo bax, midiyaha intay u dhiibtay. dabeetana markay yuusuf arkeen xaasha lilaahi ma hada bashara, waxay yidhahdeen kari bini aadamba maaha, waa malag kariimowna wax kalaba maaha. waabay caddaysatay jacaylkeedii waxay leedahay fadalika aladii lumtunanii fiih, waa kaaka igu ceebeynaysee bay yidhaahdeen. yacni waa loo garaabay mid la hungureeyey inuu yahay oo haweenkii kale xataa ay ka cabsan lahayd. waa loo garaabay inaanu kani basharka u ekayn inuu malaa'igtoo kale la mid yahay. nebi moxamed baa le calayhi salaatu wasalaam shatra alxusni baa la siiyey nebi yuusuf. quruxda dhammaanteedba nuskeed ayaa yuusuf keligii la siiyey. waxay yidhahdeen kani waa malage maahaba wax layska sii daayo. idan waa kayd iyo mu'aamaro dhan oo bulsho dhami yuusuf ay u wado. intaasoo dhan markuu ku jiro hadduu yuusuf badbaado aakhire nin kastoo le way soo dhaweysay gabadhi daliil heli maayo. yacni yuusuf hadduu intaasoo ficlo min jaanibihi marka laga eego, min jaanibi almara marka laga eego, min alwadci ku noolaayeen marka laga eego, wax kasta oo meesha yaallaa waa wax fudaydinaya ama ku yeedhaya yuusuf inuu dambaabo calayhi salaam. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa yuusuf iyo qadiyadda tan siduu uga madax adeygay. kow, ma yeelayo qura ma odhan ama mar raba ma odhanin ee waxaa la tilmaamaya xataa inuu orod cagahanka wax ka dayay. qiyaas qof bini aadam oo ordayo la eryayo, inuu xishaakiisu gaadhay inuu cararo oo ilaahay leeya wastabaqa albaab. ficil kastoo lagu dayay, ficil iyo qowlba waa la tusay. albaabada iyo meel kastoo la xidhayo ficila iyo tasayunka iyo isqurxinta loo samaynayo iyo hadalka soo dhoweynta lagu leeyahay iyo xiwaarka iyo muraawadada ka socda. laakiin yuusuf muxuu kala hortegay? u fiirso, ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala marka koowaad wuxuu yidhi macaada allah, macaada allah ay acuudu cawdan billaah, ilaahay baan magan galay buu leeyay. hayta laka markii la yidhi soo dhowow, jawaabtu waa maya maaha. maya qura waxaa laga yaaba qofku inuu isdhaa wuu is adkaynaya, gabadhu inay istiraado is yara adkaynaya ee soo aqbali doona. laakiin wuxuu ku jawaabay macaada allah, ilaahay baan magan galay buu leeyay. rab baan magan galay inaan waxa kan ku dhaco. yacni macaada allahi waxay tilmaamaysaa waa qaطci bay yidhaahdeen xataa can tafkiir.
walidaalika maryan lafteeda markuu u yimi malagu isagoo basharan sawiya maxay tidhi acuudu biraxmaani mink in kunta taqiya bay lahay ilaahay baan kaa magan galay raxmaankaan kaa magan galay haddaad tahay qofka muslimka ahi meesha ugu weyne u cuskadaa waa rabbigii subxaanahu wa tacaala nebi yuusuf wuxuu ku bilaabay inuu yidhahdo macaada allah mar labaad jumlo tacliil u ah diidistiisu keenay bay leeyihin inahu rabbi axsana mahwaay inahu laa yuflixu daalimuun wuxuu leeyahy waa rabbigay rabbiga uu ka waramayaa lababa waa dhici kartaa bay mufasiriintu yidhahdaan inuu rabbigii abuuray khaaliq الsamaawaati waalardi u jeedo inahu rabbi axsana mahwaay ilaahay subxaana wa tacaala oo godkii iyo mashkiladii iyo wixii iga soo badbaadiyey oo guri boqortooyo ay keenay miyaan maanta macaasidiisii ku dhaca ama tafsiirka kale inahu rabbi ee inahu sayidii guriga ninka lehi odayga ahay casiizu misrka ahay inahu rabbi waa sayidkaygii waa maamulahaygii axsana mahwaay degaankayguu fiicnaysiiye waa kii markuu soo iibsaday meel xun ma geyne wuxuu yidhi ninkaan si fiican u hagaaji buu yidhi markaa isagoo boqorkii isharfay guriga u weydaaran maayo buu leeyo khiyaanayn maayo waayo inahu laa yuflixu الظaalimuun ma guulaystaan oo ma liibaanaan kuwa dulmiga sameeyey dulmiga acraadoo la dulmiyo oo basharka dulmun linnaas ah ama rabbi subxaana wa tacaala macaasidiisoo lagu dhaco ah dulmun lilahi subxaana wa tacaala ayan kaan inahu laa yuflixu الظaalimuun buu leeyay kuwa dulmiga falaa ma guulaystaan waxay kale uga markhaati kacday gabadhu wala-in lam yafcal maa aamuru waxay tilmaamay fadalikuna aladii lumtunanii fiih waxa ay sheegtay fastacsam waa cismo dalbay waa dhowrsooni dalbay waa idiiday iyadaa uga markhaati kacaysaa inaanu marnaba xaggeeda hunguri ka qabanin ee inuu ka fogaaday waxaa kaloo qur-aanku tilmaamaya oo ah min adabi saalixiin oo layna baraya diinta in abaari kaaga dhacdo iyo duunyada inay abaari kaaga dhacdo marka ay timaado waxaad dooran lahayd yacni masiibooyinka iyo dhibtu inay diintaada ku dhacdo iyo inay ku dhacdo dunidaada caafimaadkaaga caruurtaada jidhkaaga inay ku dhacdo waxaad dooran lahayd nebi yuusuf arag waxaa la kala dooransiiyey boqoradii wadanka boqorkii wadanku gabadhuu qabay waa iska boqorad ee saaxibu sultaanka ahayd in uu la tunto iyo inuu xabsi galo layusjanan walayakuunan min asaakiriina bay ku dhaaranaysaa la xidhee laam iyo nunu tawkiid bay wada isticmaalaysaa xidhee oo xidhee oo xidhee bay leedahay oo weliba kuwa la dulleeyey ku biire gurigii boqortooyadu lagu kala dooransiinaya inuu ficil ka sameeyo iyo inuu xabsi uu ku waarayo galo xabsi aan sanada laysu sheegin haddii dembi inta lagu soo qabto lagu yidhaha 2 sanaa lagu xidhaya 3 baa lagu xidhaya 4 baa lagu xidhaya waa wax la garan karo laakiin boqorka wadanku hadduu iska kaa xidho waa xabsi aan la garanayn waqti laga soo bixi doono yuusuf xabsiga noocaasiya iyo zinada noocaasiyuu kala dooranaya dabeetana wuxuu leeyahy rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahayow xabsiga ayaa agtayda lagaga kaalgacal badan yahay waxay igu yeedhayaan qof kastoo muslime markay timaado inay diintiisa nuqsaani ku dhacdo inay diintiisa abaari ku dhacdo inuu diintiisa waayo iyo inuu ama nafta waayo ama xoolo waayo ama caruur waayo saalixiinta qur-aanku wuxuu ina bariya ambiyadu inay diinta dhowrayaan waana sunnada laga rabo qofka muslimka inuu ku dhaco inkastoo galbeedka su-aalaha ugu badan uu yahay sheekh salaadii iyo shaqadii baa iskhilaafay dee jimcaha soo layskagama tegi karo xagga shaqadaa loo wada badan yahay asalku laakiin wuxuu ahaa diin iyo haddee wax kale iskhilaafaan inuu diinku noqdo ka badbaadaya nebi yuusuf inuu zino boqoradaa ka zinaysto iyo inuu xabsi aan la garanin muddadiisa galo ayuu kala dooranaya wuxuu dooranaya uu leeyahy rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badan yihi waxay igu yeedhayaan
إلهي بمغان قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم ما إله إليه عند إلهي سبحانه وتعالى مغان قشا وحكو طريقة وسبا لغو هنوني إلهي ببريا يا وحوت المامية إلا تصرف عني كيدهن ماشي وحكم وطهاتن جماعة لما يدو تشطي مركي هوري امرأة العزيز تراود فتاها ويدومك كلا لهاي isagoo qulun baa iyo gabadh baa ishayay markii laakiin la soo bandhigay dumarkii kalena xagga gabadhay raaceen idan waa magaalo dhan iyo nebi yuusuf oo ishaya dumarkii boqortooyada iyo agagaarkeeda joogay ama dhe wasiirada iyo dabaaqinta iyo waxaan xaashiyada boqorka ku salaysan ee gabadhan ay iskaadhi karaan waa kooxdii ciliyatul qowm dumarkoodii iyoba nebi yuusuf baa dirartu ka dhaxaysa sida awgeed buu jamac ahaan u tilmaamaya uu leeyahy wailaa tasrif canii kaydahunna ilaahu haddaanad i dhaafinin kuwan dhagartooda asbu ilayhina waaku min aljaahiliin ilaahu waa lay haleelayaa buu leeyahy dhibtaasi way igu dhacaysaa wuxuu kaloo leeyahay waxaan ku biirayaa waxmagaratada aljaahil fi hina asafiih safiihu waa qofka arkaya rabbigii abuuray ee khalqay ee nicmeeyey haddana wixii uu kugu nicmeeyey inaad isaga ku caasida waa nooc min asafah xataa walilahi matala basharka caadiga qof hadduu wax ku siiyo oo xoolo kaa buuxiyo aada xoolihiisa isaga kula dagaalanta ka waran waa nooc min asafah waa caqli xumo rabbiga ku abuuray ee ku nooleeyey ee ku barwaaqeeyey caafimaadka ku siiyey ee waxaan oo dhan ku siiyey haddana wixii uu nicmo isaga ku siiyey inaad macsidiisa ku fulisaa waa nooc min asafah dabeeta saa daraaddeed wuxuu leeyahy akun min aljaahiliin waxaan ka mid noqon doonaa wax magaratada ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi yuusuf markuu isagu dadaalka badiyey rabbi waa dhowr idan qof kasta oo bulshada ka mida muslimka ah oo sheegta inay duruufi xumaha ku kaliftay akhira daliil heli maayo maadaama yuusuf oo intaasoo darfiya haysatay u ka badbaaday mal cilaaj baynu leenahay qofku inuu cafiif noqdo maxaa keensada masaa'ibtani markay dhacdo maxaa lagu badbaadaa min alqisa waxaynu ka fahmaynaa kool inaad cararto oo meelaha fitanka iyo mashaakilku jooga inaad ka dheeraato walidalik ba alciz bnu cabdisalaam raxmat ullaahi calayh mas'alat algafla markuu sharxayo gafladu waa dhoohanida iyo moognaanta ayuu wuxuu yihi gaflada mid madmuuma iyo mid maxmuuda jirta dhoohani fiican iyo dhoohnaan xun baa jirta buu leeyahy inaad ilaahay xuskiisa iyo weynidiisa iyo dikrigiisa gaafil ka noqoto ka dhoohnaataa waa ta xune doqonnimada ah inaad meelaha macsida lagu hayo iyo xumaha iyo sheekadiisa iyo warkiisa inaad warmoog ka ahaataa waa ta fiican buu leeyahy idan waxaa kow ah inuu qofku ka dheeraado ama uu ka dhoohnaado meelaha xumaha lagu hayo o dhan uu ka foofo waxaa ka mid a qofku inuu ka fogaado asxaabta xunxun ee xumaha kuusii reexaysa dhankooda waxaa ka mid a bay culamadu yidhaahdaan inuu qofku in badan ilaahay magan galo oo aanad naftaada kalsooni badan ku qabin kalsoonida badan waxaan ujeedaa inaad istidhaahdo ninka soomaaligii markuu wadankii kasoo socdo wuxuu is idhaahdaa war nin muslim oo isku kalsoon markaa tidhaha war carruurtaa lunta kanbaala wuxuu ku leeyay war anigu nin muslim oo caqli labana miya waale markaa gaar raacayo waa kalsooni dheeraadu naftiisa siiyey wuxuu is leeyahay waxbaad iska dhicin kartaa laakiin waaqaca markuu yimaado iyo goobta dagaalku ka jira markuu yimaado ayuu isdhiba idhahdee sheekh maxaa la samayn karaya xagga kasoo ururtay oo xagga kasoo ururtay oo wax baa dhacay oo kan baa dhacay maxaa la sameeya marka hore kalsooni beena naftaada ku abuurtay sideedaba qofka bini aadamkaah macrakada markuu galo ayuu ninuu yahay bartaa nin waliba haddii imika dagaal laga sheekeeyo nin waliba wuxuu isle walahi geesi waad noqon kari lahayd geesigaa la sheegaya ama ninkaa mintiday waad noqon kari lahayd laakiin haddii xabaddu inaga wada dul dhacdo inta meeshaba kusoo hari lahayd waxaa laga yaaba inay fara ku tirisi noqoto yani markaasaad isbaranaysaa adaa isbaranaya nimaa tahay idan hiqada dheeraadkii ma fiicna inaad tidhaahdo anugu nin muslim oo adkaysi badan ba aniga ma gabadha yar baa fitnayn kar iskaga forgow inaad ka durugto aad waxba ku darsanin ayaa salaamadaadu ku jirtaa
salaamadaadu inaad adigu fitnada isu bandhigin ayay kuugu jirtaa. idan nebi yuusuf ilaahay buu baryaa wailaa tasrif canii kaydahuna buu leeyahy. naftiisa kalsooni kuma qabe, rabbu kalsooni ku qabaa, ilaahu kuwaas kaydkooday dhaafi buu leeyahy. waxaa kaloo ka mida bay leeyihin qofku inuu dhowrsanaado waxa keena inuu ilaahay baryadiisa badiyo. allahuma ina asaluka alcafwa walcafaafa walghina ayaa nebi maxamed ku ducaysanayay inuu qofka mu'minka ahi ilaahay baryadiisa badiyo. waayo nebi yuusufba mixnadan markuu ku jiray ilaahay buu baryey, rabbina wuxuu ku jawaabay faاstajaaba lahu rabu fasarafa canhu kaydahuna. ilaahay baa ducadii ka aqbalay oo ka weeciyey duurkan dhibtiisii baa layidhi. mixanka markaad ku jirto waxaad u baahan tahay cid qalbiga kuwa adkaysta, waa ilaa go-aamada adagi wax fudud laguma qaato. cid kugu adkaystaad u baahan tahay, cid kugu adkaystana rabbigaabaa ugu fiican. inaad rabbigaa barido, isagaa muwallib alquluuba, isagaa quluubtu bayna isbacayni min asaabici araxmaan ay ku jirtaa, laba faroodoo faraha raxmaanka abay ku dhex jirtaa, yuqallibuhaa kayfa yashaa, siduu doono isagaa ilaahay qalbiyada u rogroga. idan inaad ilaahay baryadiisa badiso in alla ku dhowro subxaana wa tacaala. cilaajka waxaa ka mida bay culimmadu yidhaahdaan inaad tacawudka tiro badiso o ilaahay magan gashid. shayطaanu rajiimka, shayطaanu linsi waljin, shayaaiinu linsi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrafa alqowli guruura ba ilaha yidhi. shaydaanadii jinki iyo insigu midba kuwa kaluu waxyooda waxyaabaha qofka bini aadamkaa lagu lumiyo. idan inaad ilaahay magan gashid. waxaa kaloo ka mida bay culimmadu yidhaahdaan inaad xasuusato dunuubta iyo macaasida iyo meesha ay dadka geyso, faaxishada iyo xumaheeda. akun min aljaahiliin buu nebi yuusuf tilmaamaya. amase haddaad dhowrsato waxaa la helaya inaad in badan isku dayda inaad xasuusnato. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy markuu ka warramayo mu'miniinta jannatu lfirdowsa dhaxlaysa, waladiina hum ilahay muxuu ku tilmaamaya waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanhum. waa kuwa farjigooda xifdiyada ilaahay yidhi, kuwaas baa ilahay wuxuu sifaynaya ulaaئika hum alwaarihuun aladiina yarihuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun. idan waxyaabaha keensada qofku inuu dhowrsado waxaa ka mid a inuu in badan aakhiro xasuusto. oo dhan zinada iyo macsideed iyo dembiga ay leedahay. rabbi subxaanaه wa tacaala markuu dunuubta tirinayey kufriga iyo dilka nafta iyo zinada uu israaciyey. dadkii saalixiinta cibaad الraxmaani marka ilaahay addoomaha raxmaanka uu ka warramayo waa wanaagsan waxaa lagu tilmaamay aladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuun baa ilahay yihi. cibaad الraxmaan markii la sifeynaya awsaafta lagu sifeeyey waxaa ka mid a waa kuwa aan ilaahay keyrkii la caabudin. waxaa kaloo lagu sifeeyey waa kuwa aan nafta goynin xaq mooyaane. waxaa kaloo lagu sifeeyey waa kuwa aan zinaysanin. idan naf la dilo iyo kufri ayaa zinada lagu daray. inaad garato markaa dembigeedu intuu leegyahay. waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya dhowrsoonida keenaya walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila baa ilahay yihi. walaa taqrabu ha u dhowaanina baa ilahay yihi subxaanaه wa tacaala. zinada ha u dhowaanina. zinada ha samaynina lama odhanin ee waxaa la yidhi ha u dhowaanina. ha u dhowaanina maxay keensanaysaa? waxay keensanaysaa wax allaaliya wixii zina kuu dhoweynaya inaad ka durugto. oo uu ka mid yahay kow ishaada inaad ilaaliso. qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim. mu'miniinta waxaad ku tidhahdaa isha ha rogaan. waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihim. haweenka u sheeg iyaguna inay isha hoosu rogaan. waxaa ka mida bay culimmadu yidhaahdaan alintisaaru cala nafs. qofku inuu naftiisa ka adkaado oo qofku inuu nafta ka adkaado xakamaynteeda barto. dabdu nafs ay idaaratu nafs. nafta inaad controli kartaa waa wax la barto. sabirku waa wax la barto. qofka bini aadamkaahi xag buu gaari karaa uu sabirku naftiisa controli karo. walidaalika nebi yuusuf marka ilaahay qur-aanka kaga warramayo fi hadihi suura siduu u bartay naftiisa inuu controlo bal u fiirso
walaaladii oo god ku riday oo wixii loogaa ku sameeyey ayaa isagoo boqora u yimi. dabeetana markii uu farsamada sameeyey walaalkiisa yaraaye kale uu ka reebay ee lagu soo riday weelkii ay siteen suwaacalmeliki, boqorku wixii wax ku galaameynaya dabeetana uu ka soo saaray. maxay yidhaahdeen? in yasraq faqad saraqa akhu lahu min qablu. hadduu kani waxaday bay yidhaahdeen mid ka weyn ay walaalahaynoo tuug ahaan jiray baa jira, waa yuusuf ka hortaagan. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahu antum sharu makaan. yuusuf naftiisa wuxuu ku qarsaday baa ilaahay yidhi, waanu iyaga marna u muujanin, idinkaa ka shar badan. yacni isagoo ka xoog badan marka kan oo boqora oo caynkale oo markii hore isagoo inay yara intay qaadeen god ku rideen ayay weli sii ceebeynayaane waxay leeyihiin miday walaalahayn baa tuuga. laakiin waxaa ka muuqata nebi yuusuf siduu naftiisa u kontarooli karayo, xataa fii haadihi laxda aanay cadho qaadaynin, bale uu afkiisa kontarooli karayo wuxuu ku hadlayo, isagoo xaq u lahaa inuu iska dhiciyo. idan qofka mu'minkii wuxuu u baahan yahy inuu nafta kontarooli karo inuu barto. wuxuu u baahan yahay si uu qofka muslimka ama ninka shaabkii uu dhowrsanaado ataxwiil waxay yidhaahdaan, oo ah daaqad iyo enerjiga inuu wax kale ku bixiyo. qofku hadduu intuu dhergo muraayadun isku daadaawado oo iska takhayulo kolba wax isu sheekeeyo, dee wuu qooqaya, fadhiyi maayo. hadaad cunno cunto shaqana aanad qaban, kolla tv-ga yaro eegto, kolla yaro fakfakartid, kolla adigu jidhkaaga isdaawatid, idan dariiq qaldan baad sii socotaa. waxaa asalka ah bay leeyihin nafta inaad mashquuliso. asalku waxa weeyaan qofku daaqadiisa iyo enerjigiisa inuu wax kale ku bixiyo. maalan hadduu waxbarasho qofku ku mashquul yahay, waxaa laga yaabaa inaan wax kaleba haleelin, waktigiisii timekiisii wixiisii oo dhan. hadduu shaqo ku mashquuliya waxa laga yaabaa inaan waqtiga, haddii daaqada meel kale aad ku bixinayso daaqatuljinsiya way yaraan kartaa. laakiin haddaad hurdo iyo cunno isla hayso iyo musiiraadka agtaada ka buuxa, saad isu controli kartaa way adagtay. walidalik waxay yidhaahdaan taxwiilu daaqa qofku inuu sameeyo istifraaqu daaqa fii maxallin ukhra. qofku inuu daaqa enerjigiisa inaanu kaydinine wax kale inuu ku isticmaalo. ninka dhalinyarada galabta kubad soo cayaara caawada discoteega tegi kari maayo, ila galabtu soo daalay. idan qofku istifraaqu daaqa hadduu sameeyo waxay samaynaysaa inay yaraato bay yidhahdeen mushkilada kale. waxaa la mida bay yidhaahdeen musiiraadka daakhiliga ah, khawaatirtan qalbiga kusoo dhacda iyo afkaartan iyo waxa kan ladat ilcamal inuu isku dhaafiyo isilowsiiyo. waxaasoo dhan waynu sheegaynaa waxa ay tilmaamayeen inuu qofku dhowrsanaan karo, ama dhowrsanida nafta inay wax badanoo wax ka saacidaaya yihiin. ilaahayna subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa rag iyo dumar tiro badan oo dhowrsanaaday. maalan maryama bintu cimraan ayaa rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka ku ammaanaya. ammaanaha ugu waaweyne maryamo loo sheegay waxaa ka mid ah wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha baa ilaahay yidhi. maryamadiina cimraan ahayd ee dhowrsatay, ilaalisay farjigeeda. maryamo farjigeeda ilaalisay waxay ku mashquulshaday culamadu yidhahdeen cibaaday dhaafsiisatay. waa kii nebi zakariya markuu usoo galaba iyadoo ilaahay caabudaysa, dabeetana karaamaadku ay ka daahirayeen nebi zakariya u imanaya iyadoo raashin dhinaceeda u yaallo. bal ay culammadu yidhahdeen raashimada dhinaceeda yaallay mar kasta waxaa agteeda ooli jiray waktigaa fawaakihda aan go-in. yacni iyadoo winter oo kaleba waxaa oolaysa faakihadiisa marka soo bii jirtay. waa waxaad garan karto markaa wax qofu keenay inaanay hayn, wax min allahi ka yimi subxaana wa tacaala. maryama cibaaday ku mashquulshay. inay cibaado ku mashquulshaa waxay keensatay inay dhowrsanaato. walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku ammaanayaa leeyay waa maryamadii jidhkeeda ama farjigeeda dhowrtay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala. waxaa ka mid a musiiraadkao dhan in la yareeyo. way ka mid tahay rag iyo dumarka wada joogooda tirada badan leh, khalwada, ikhtilaadka. ay ka mid tahay gabadha galbeedka markaynu joogno musiiraadka o dhan baa la tiro badiyaa. style engineerska nimanka la yidhahdo fashionka nimanka sameeya lacag badan waa dadyo injineerada ugu lacag badan bay ka mid yihiin.
fashion engineer. Fashion engineer ka khibradiisa ugu weyn waa maxay? waa gabadha halkay ugu quruxda badantay inay soo bandhigto. waa engineer baan wuxuu ka fikirayaa ay tahay gabadha tan halkee ku qurux badan, tii dabada qurux badan la dabada la muujin, tii dhabarka qurux badan la dhabarka loo muujin, tii naasaha qurux badan la naasaha loo muujin. bidba marada dhinaca laga dilaacinaya waxay ku xidhan tahay maxaa la soo bandhigi karaa, gabadha maxaa laga soo bandhigi karaa. kabta loo tolaya waxay ku xidhan tahay yani kabaha dhaadheer maxaa loo qaataa litamaayul inay gabadha yaro dheeldheelido, waayo dheeldheeliga ragga soo jeediya. gabadha kabaha loo xidha mataqaani waa wada sanqadhaan. hadday gabadhi 5 meel dabadaada soo socoto qurqurqurqur iyadoo sooraad maqlaysa, 50 min hadday dabadaada socdaana maqli maysid. maxaa loo sanqadhiyey teeda? waxaa loo sanqadhiyey inaad eegto. yani waxay yidhahdaan qolada psychology-gu axdeelka waxay tilmaamay baxka ay sameeyeen ninka maskaxdiisa bay yidhahdeen waxa ugu raad badan le markiiba jeediyey intibaahiisa aanu ka sabrin markiiba weego waa xabaashiya dumarka bay yidhaahdeen. hadduu xabaalo soo dul maro qofku siduu u fakariyo hadduu gabadh arko labadaba isku qayb baa dhaqaaqda bay yidhahdeen madax xataa. idan gabadha in lagu ag marmariyo oo la qaadiyo waxa kaloo dhan waa musiir. haddaad rabto inaad zina iyo xumo ka dheeraato waxa isaarada keenoo dhan waa inaad ka durugtaa. meelaha musiirka korniija tegin, walaa meelaha ay isku qaaqaawiyeen ha tegin, walaa intaad ka durki karta ka durug waxay keensanaysaa inaad dhowrsanaatee. waxay leenahay rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayay masaladu inaanay adkayn, laakiin inay u baahan tahay qofku inuu waxbarto, ilaahay ka cabsado, daraaseeyo siduu u dhowrsanaan kari lahaa, iyo wasaaisha uu keensanayo inuu dhowrsado inuu si fiican u barto. walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayay nebi yuusuf inuu ramsulcifa astaantii dhowrsoonida inuu yahay nin kastaoo dhallinyaro ah. nin kastaoo dhallinyaro ama inan kastaoo dhallinyaro adduunka ku dhacday xumaha kanna inaanay aakhiro xujo helaynin, laakiin toobadda u bannaan. wasala allahu calaa nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.